kulanti wanaagsan daawadaalkuna soo dhowaada markale barnaamijkan arrimaha siyaasadda ee garqaad midia qodobada wararkan ku soo qaadan doonana waxa ugu waaweyn baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug ayaa maanta waxa uu yeelanayaa kulankoodii ugu horreeyey iyagoo ka hadli doona arrimo ku aadan doorashada dalka. madaxweynaha maamulka puntland waxa uu shaaciyey wakhtiga la tooganayo raggii lagu helay dilkii ama kiiska caashe ilyaas aadan oo sanadkii hore ay lagu dhex dil gudaha magaalada gaalkacyo. cabdiraxmaan odobaane waxa uu soo dhoweeyey baarlamaanka cusub iyo weliba dhaarintoodii isagoona sheegay in la dardargeliyo doorashada madaxweynaha iyo weliba wakhtigii loogu talagalay. dhanka kalena maxay ka wada hadleen madaxweynaha puntland iyo weliba safiirka maraykanka xilli uu booqday magaalada garowe maalnimadii shalay ahayd, iyo weliba iiraan dibadbaxyaasha oo dowladda ku eedeeyey inay ka been sheegtay diyaaraddii burburtay xilli ay sii xumaanayso xiriirka dowladaha maraykanka iyo weliba dalkaasi iiraan. qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaanu barnaamijkeena daawadal ku soo qaadan doonaa kuna falanqayn doonaa saacadaha soo socda. aanu ku bilownay faahfaahinta wararka ee xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ayaa maanta waxay magaalada dhuusamareeb ku yeelanayaan kulankoodii ugu horreeyey kaasoo ay uga hadlayaan arrimo dhowr ah. fadhiga baanta ayaa waxaa lagu dooran doonaa gudoomiyaha cusub ee kumeelgaara kaasoo noqon doona ninka ugu daada weyn. gudoomiyaha kumeelgaarka ayaana waxaa soo magacaabi doona guddi doorasho kuwaas oo diyaarin doona qaabka ay noqonayso doorashada gudoomiyaha iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee galmudug. caasimada galmudug waxaa durba ka bilowda ololaha loogu jiro kursiga gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo xukuumadda ay doonaysa inay soo saarto gudoomiye ay wadato. amniga guud ee magaalada dhuusamareeb ayaana si aada loo adkeeyey iyadoo ay socdaan kulamo gaargaar ah oo udhac u ah doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi galmudug. waxaana magaalada laga dareemayaa qulqul siyaasiyiin kasoo imaanaya magaalada muqdisho kuwaasoo raba inay qayb ka noqdaan isbedelka ka soconaya deegaanadaasi galmudug. waxaa magaalada dhuusamareeb ku sugan wasaare kheyre oo muddooyinkii ugu dambeysayba ku sugnaa lana socday sida ay xaaladu socdaan islamarkaasna ka warqabay soo saarista liiska xildhibaanada iyo weliba dhaalintoodii shalay lagu dhaariyay isla magaaladaasi dhuusamareeb. walow ilaa iyo 4 xildhibaan ilaa hadda ay ka dhiman yihiin wadarta guud ee xildhibaanada maamulka galmudug, haddana weli waxa ay arrintu tahay mid aan loo joogsanaynin oo waxaa socoto ama bilaabatay shaqadii baarlamaanka islamarkaasna waxa ay maanta dooran doonaan ninka ugu daawada weyn oo ah gudoomiye gaara loo dooran doono. wixii intaasi ka dambeeya waxaa la gudageli doonaa doorashada gudoomiyaha iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee galmudug. wixii intaasi ka dambeeya waxay noqon doontaa ololaha doorashada madaxtinimo iyadoona baarlamaanka uu dooran doono madaxweynaha cusub ee maamulkaasi galmudug. walow magaalada gaalkacyo ay ku shirayaan odayaal dhaqameedyo iyo weliba madaxweynihii hore ee maamulkaasi galmudug mudane xaaf ayaa waxaa iyagana wada dhinacooda arrimo ku aadan sidii ay usoo dhisi lahaayeen maamulka gooni ah barbarna socdana kan laga dhisiyay magaalada dhuusamareeb. walow la ogeyn awoodda uu yeelan doono maamulkaasi iyo weliba cidda aqoonsan doonta, haddana xaaf ayaa waxa uu ku dhawaaqay in magaalada gaalkacyo ay ka furan tahay shirka dib u heshiisiinta galmudug kaasoo qallaasi cusub ku noqonaya kan ka socda magaalada dhuusamareeb oo gabagabada hadda maray. dhanka kalena puntland ayaa waxa ay shaacisay ama xereeryaha guud ee maamulka puntland mudane maxamuud xasan ow cusmaan ayaa waxa uu shaaciyey xilliga kama dambaysta ah ee xukunka dilka toogashada lagu filin doono raggii lagu helay kiiskii caashe ilyaas aadan. ow cusmaan oo telefishinka puntland u sheegay in raggaasi oo gaaraya 3 la toogan doono subaxtinimada talaadada 11 bisha soo socotay Febraayo 2020. sidoo kale xereeryaha ayaa sheegay inuu shalay wareejiyey galka fulinta xukunka oo ay ku lifaaqan yihiin warqadii dhaxal koobka iyo weliba codsigii qisaasta dalabka qoyska marxuumed caashe ilyaas aadan. 3 xukunayaasha ayaana kala ah cabdishakuur maxamed diga, cabdisalaan cabdiraxmaan warsame iyo weliba cabdifataax cabdiraxmaan warsame. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal midda racfaanka iyo weliba tansare ayaa waxa ay xukun dil toogasho ku rideen raggani kadib markii lagu helay kiiskaasi. caashe ilyaas aadan oo 12 jir ahayd ayaa lagu iskugu daray kufsi iyo weliba dil bishii Febraayo ee sanadkii 2019 waxaana dhacdadaasi ay si weyn u taabatay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed iyadoona keentay in xukunka nimankaasi aad loola socdo islamarkaasna mararka qaar si toos ah loogu daawanayay telefishinada marka ay maxkamaddu gaaraysay go'aanada. taasi oo keentay in raggani oo muddo ay maxkamadaha puntland isku warwareejinayeen
kama dambaystii la go-aamiyey xilliga la tooganayo. waxa ayna tani noqonaysaa midii ugu horreysay oo deegaanada Puntland ka dhacda muddooyinkii ugu dambeysayba, waxaana raggani oo ah laba mid ka mid ah walaalo yihiin iyo weliba hal mid ka mid ah oo nin oday ah ay noqonayaan raggii ugu horreeyay oo si toos ah loo toogan doono, walow la ogeyn toogashadooda iyo weliba qaabka ay u dhaceyso iyo weliba xilliyada ay dhaceyso in la ogaan doono. dhanka kalena musharaxa madaxweynaha maamulka Puntland oo ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa ayaa waxa uu sheegay ama soo dhaweeyay dhaarinta xildhibaanada oo ka dhacday caasimadda maamulka Galgaduud ee Dhuusamareeb. xildhibaan Odawa oo la hadlay suxufiyiinta ayaa sheegay in muddo 8 bilood ay socotay howlaha lagu soo xuliyay baarlamaanka Galmudug, maantana ay tahay wax lagu farxo buu yiri in xildhibaanada la dhaariyo si howlan dhimanna loo dardargeliyo. Mr. Odawa ayaana dhinaca kale ku taliyay in la soo dhameystiro 6 xubnood ee ka harsan baarlamaanka, kuwaas oo ku tilmaamay inay ku maqan yihiin arrimo dana gaar loo leeyahay balse ay diyaar yihiin odayaashii soo xuli lahaa. waxa uu dhinaca kale guddiga farsamada dhismaha Galmudug iyo weliba tan madaxda sare ee dalka xasuusiyay in wado dheer loo soo maray in la helo maamul dadka deegaanka ay ku midaysan yihiin, loona baahan yahay in aan la beer dareen fursadaha haatan muuqda. Cabdiraxmaan Odawa oo hore usoo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee soo dhisay Galmudug ayaa soo dhaweeyay xal u helista tabashooyinka ahlusunna, wuxuuna ka digay in la weeciyo hawsha socoto sidii shacabka Galmudug u yeelan lahaayeen maamul ka shaqeeya danahooda. wuxuuna Odawa ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad xilka madaxweynaha ee maamulkaasi Galmudug. waxa uu nala tartami doonaa 4 musharax oo kale oo iyagana u taagan xilka madaxweynaha ee maamulkaasi Galmudug, kuwaas oo iyagana ka mid noqon doona ololaha doorashada. dhanka kalena madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta qaabilay safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo weli wafdi hogaaminayo, kaasoo gaaray shalay magaaladaasi Boosaaso. kulankan ayaana ka dhacay garoonka diyaaradaha Boosaaso, halkaas oo ammaanka si aad loo adkeeyay. safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa waxaa safarkiisa ku yeelinayay saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka. Donald Yamamoto iyo weli madaxweyne Deni ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Mareykanka iyo weliba Soomaaliya, la dagaalanka gagixisada, xaaladda guud ee siyaasadda ee Soomaaliya, dhaqaalaha iyo weliba dhinacafinta ee Soomaaliya. sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan, waxaana madaxweynaha Puntland uu gudbiyay safiirka Mareykanka cabasho ay ka qabaan sharciyo aan lagala tashan Puntland ay ansixiyeen baarlamaanka iyo weliba qaabka dowladda federaalka Soomaaliya kula dhaqmayso maamul goboleedyada. waxaa socdaalkii labaad oo safiirka Mareykanka uu ku tago Boosaaso, iyadoo sanadkii hore sidaan uu booqasho gaaban oo kale ugu tagay isla magaaladaasi Boosaaso. Donald Yamamoto ayaana waxa uu muddooyinkii ugu dambeysay safaro ku kala bixinayay gobolada dalka, isagoona tegay sidoo kale deegaanada Jubbaland ee magaalada Kismaayo, magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed, walow ilaa hadda uusan tegin deegaanada Galmudug oo uu maamul shaqeeyo uusan ka hadleen iyo weliba maamulka kale ee Hirshabelle. ugu dambeyn daawadayaal, boqolaal dibadbaxyaal ayaa waxa ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Iran ee Tehran, iyadoona muujinaya caro ay u qabaan dowladda, uguna yeerayaan beenalayaan inay soo rideen diyaaradda rakaab ay saarnaayeen oo laga leeyahay dalkaasi Ukraine. dibadbaxyada ayaana ka dhacay banaanka ugu yaraan 2 jaamacadood, iyadoona la sheegay in booliisku uu adeegsaday sunta dadka kelmaysiis. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana bartiisa Twitter-ka taageero ugu muujiyay dibadbaxyaasha. Iran ayaana shalay qiratay inay si kama u soo riday diyaaradda 3 maalmood kadib burburkii diyaaraddu ay ku dhinteen dhammaanba dadkii saarnaa. duulimaadka Ukrainian International Airlines ee BS752 ayaa Arbacadii lagu soo riday meel u dhow garoonka Iman Komeir ee magaaladaasi Tehran, waxay kadib markii ay halkaasi ka duushay, iyadoo saacado yar uun kadib markii ay Iran gantaalo ku tuurtay 2 saldhig oo ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi Ciraaq. weerarkan ayaa waxa Iran ugu jawaabaysay dilkii Mareykanku u geystay Qaasim Suleymaani oo laf dhabar u ah militariga Iran, kaasoo ku dhintay weerar ka dhacay Baghdad 3 January. dadka u dhashay Iran, Canada, Ukraine, UK, Afghanistan iyo Jarmalka ayaana ku dhintay diyaaraddaasi. arday ayaana isugu soo baxday ugu yaraan banaanka 2 jaamacadood, jaamacadda Sharif iyo weliba Amir Khabiir, sida ay wararku sheegayaan, iyadoo markii hore ay ujeedadu ahayd inay xushmad u muujiyaan dadkii ku dhintay diyaaradda. dibadbaxyada ayaase isbedelay xalay ilaa 1,000 qof ayaana
adeegsanayay hal ku dhigyo ka dhan ah hogaamiyayaasha Iiraan, iyagoo sidoo kale jeexjeexay sawirada Suleymaani. ardayda ayaana ku baaqay in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay soo ridida diyaaradda iyo weliba dadkii qariyayba. halkudhigyada waxay ka mid ahaayeen madax sare iscadil iyadoo ula jeedo hogaamiyaha sare ee dalkaasi Al-Khamenei iyo dhimasho ha ku sugnaato beenaalayaasha. dadka isticmaala baraha bulshada ee dalkaas ayaa sidoo kale caro u muujiyay dowladda. mid ka mid ah dadkaasi ayaana Twitterka kusoo qoray, weligay ma cafin doono dowladda dalkayga, dadka meesha joogay ee haddana beenta sheegaya ayuu kusoo qoray. Iiraan ayaana waxa ay ku jirtaa xaalad culus, iyadoona muddooyinkii ugu dambeysayba ay saarnaayeen cadaadis xoogan oo saarayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taasoo u muuqata qaabka Iiraan iyo weliba Mareykanka ugu sii kala fogaanayaan oo ku aadan wadahadal inay dhex maro, iyadoona Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu doonayo in wax kasta lagu dhameeyo wadahadal, balse Iiraan ayaa ku dhawaaqday inay doonaynin wadahadal, taasoo ka dhigan in Iiraan ay marayso meeshii ugu dambeysay ee xaaladda xiriirka labada dowladood. Iiraan ayaana waxa ay sheegtay in haddii Mareykanku isku dayo inuu soo weeraro ay ka argudan doonto gobolka, taasi ula jeeda inay weerari doonto dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Israa'iil oo xulafo xoogan la ah dalkaasi Mareykanka. balse Mareykanka ayaa la sheegayaa in uu isticmaalayo siyaasad ka duwan tii hore, iyadoona Donald Trump lagu eedeynayo inuu awoodda madaxweynenimo si qaldan u isticmaalayo. Koongareeska dalkaasi Mareykanka ayaana soo riday ama soo wada sharci ku aadan xakameynta madaxweynaha xilkaysta iyo weliba awooddiisa militariga. intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.